السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي دقانيقة من الباجوتين دعرة دوان إن سلامي قف الباء وقتي تهاي وقتي ونكسن إن سلام أدو قالب بدن كسوق قلبك أيان هو إنسان مرسي أنتو مقالكي أنسو قرب وسود دوادا ومسكنتي رضا إن الظاهرة هاد الليلة لكي هاد إن أباي مشبوشوي أباي سيجدوي واي إن سوجي سلا marka oran salaam dhamaantiin wada joogtiin intii xanuunsan ilaahay xanuunka ka qaado intii caafimaad haysata ilaahay caafimaadka u siyaadiyo ilaahay wadankeena nabad naga dhigo cadowgana Allah naga qabto wadankeena barwaaqo bashbash Allah naga dhigo insha Allah taala maanta maxaan in wadaa qiso ka dhacday Nairobi iska badan qisooyinka mid ayaan kasoo qaadan doonaa insha Allah waan in soo wadaagi doonaa mar walba isla socod wanaagsan subscribe-ka share-ta comment-iga waa dhiirigelin waa xagiina ma sha Allah waxa waa qisada oo ku dhacday 3 gabdhood oo ku sugnayd magaalada Nairobi asxaabba ahaayeen waxay aadi jireen kalaab ay ka tuma jireen subhanallah ay aadi jireen marka gabdhaha mar walba habeenkii bay baxaan 6 saac oo habeenimo bay mar walba waa xilliga adiga wadanka kala dadka magaalka kala hooyadaan 6 saac bay aadi jireen magaalka inta soo labistaan kaalis soo dhigaan saddexdu baad la soo raaci jiray qisada mid badan way maqleenaan uma leenayaa gabdhii marka habeen kamid ah adiga dhowr habeen bixi jireen marka qaar ilaahay ma ku soo doonay wax walba isku hadeynay jidka wanaagsan ku tusinay ama ku tusinay wax aad ku tusaale qaatana marka qaar wuxuunta ilaahay ku tusinay wax aad ku tusaale qaato ayuu ku tusinayaa marka gabdhihii waxa dhacday taxi u imaadeen taxiga markay u imaadeen taxiga waxa ku jira wiilal ka dhexeen wiilashan Soomaali bay ogyihiin hadda Soomaali ma raaceen kaas ba adduun fahmayaan kaas adoomeeyay oo kayaan badanka ah madowga raacno marka wiilku waa Soomaali laakiin waxay u haysan doonaan wiilkayaan ay u haysan doonaan marka wuxuu wataa jaagada haween dhaxanta lagu tala galay buu xiran yahay gaariso ku jira marka Soomaali bay kula hadleen Soomaali kula masana Soomaali ayaa kula hadleen Soomaali kula hadleen Soomaali asna oo kula hadlay Soomaali kula hadlay dhahan waxaan rabnaa magaalada waa diyaar buu dhahay toonka rabnaa waa diyaar in wadaaya waayahay gabdhihii sidii ayay ku raaceen wiilkii gadaal baa fadhiistay saddexdoodii waa la sheekeysanayaa adiga wiilku soo u sii waday bay dhahan inta ugu dabashin u geeyay mees heblan la geeyay meeshii buu geeyay meeshii markuu geeyay inta ugu dajiyay meeshii ku dajiyay oo dhan soo xiribay kula hadlayaan wiilka soo kayaan bay u haystaan بس ماشي موجود التويل كي محسن مية شبوك على حي وحيد هنا أبوه وحارنا يعني وحاقرتين كان باقي يعني صون قش وديتان بحتان يصون قشة أنت كليش يمحل هنا وحارنا إلى نكيسو وحارنا إلى نسوي عرسة إن هاي وايو هبوده هاي ويلك جاري ومارس باقي أنتي إن بس أوكي ماشي السحول هاي لما راح نتيم كأصوات لما تن الله صباحا وعدياب هاي ويلك وشكيه قبله وابحين وأركبه كنت بحسن كيان بس waxay sameeyeen gabdhihii meeshii bay tageen meeshii markay tageen adiga wixii soo qabsan karaan bay soo qabsadeen arintii u baxeen bay soo sameeyeen waxay soo haysteen oo soo qaraabteen subhanallah waa dana wiilkii bay ku soo noqdeen waa soo waceen haye waa soo baxeen diyaaraneen kuwa banaanka baa ku sugaa dhahay sidii bay ku soo raaceen sidii markay ku soo raaceen ayaa waxa dhacday maxaa dhahay sheeg sidii marka ay ku soo raaceen waa la soo sheekaystay naag walba nin baa la soo kulmay marka naag walba nin baa la soo saddex nin baa la soo kala kulmeen nimankaas bay waxa way lacagta adduunka ka soo qaateen ayeenku dhadeed lacag ka soo qaatay la soo tumanteen waa soo bixeen markay soo bixeen waxay ka sheekeynayaan saddexdoodii ilaa wiilku ma haystaan inuu Soomaali yahay ayaa waxay ka sheekeynayaan qisadii ku soo dhacday ama taariikhda ku dhacday mid ka sheekeynaysa naahib loo yahay maanta waxa dhacay moogtahay naasana dhaco ninkii saambu yeelo midba ka sheekeysay waxay tiri aniga maanta markii sidii wixii saddexda ka sheekaysan oo arrimihii lagu sameeyay dhex sheekaystay ku sheegay ilaa Soomaaliya ku hadlaya ninkii kayaan bay u haystaan
waxay tirinaa hibley waxaa igu daran kulaha waxaan soo iloobay telefoonkii markaa ninkii kasoo dhamaaday kulaha oo waxaan ku dhahay hal yaan taagnaa hal bar ninkaan baraada hal marka bixi laheedaas dhahayto naftuba ii keenay ninkii maxaa la sheeg inoo is dhahay hal maya ninkaan kaa wado oo waxaan ku dhahay ninkii aan kasoo baxay ayaan kulahan kasoo dhamaaday aan soo libistay aan soo baxay markaa maraa jaranjartii waxaan soo xasuusta kulaha telefoonkeygii dib baan u noqday dib markaa u noqday kulaha ninkii waa iba qabtay sheekadii wuxuu kulahaa meeshii iiga bilaabo dib iiga culiyay wixii aan kasoo dhamaaday iyo kow yurub yar iimistaa jirto gurigii ugu xirtay dadii kow ninkii meeshii wixii buu igu sameeyey meeshii gabdhihii taariikhdana adu wixii bay ka sheekaysteen ay soo sameeyeen markay ka sheekaysteen bay waxay dhaheen meeshii inta nagu daji meeshii markay imaadeen inta nagu daji bay dhaheen inta nagu daji wuxuu dhahay wiilkii waxay u tuureen ambees ahaan bay lacagtii ugu tuureen markaas wuxuu dhahay hal mar wuxuu kasoo fakatay janji mahaye maxaan sameeyaa buu hal mar wiilkii kasoo fakatay janji mahaye maxaa yacni janji waxaa ka wadaa yacni lacagta sarif mahaye maxaan sameeyaa buu dhahay wiilkii hal mar soomaali ma ahayd bay dhaheen soomaali markay ahaydna gaarigii bay may wuxuu dhahay wiilkii meeshii waan imaanay buu dhahay waan imaanay meeshii uu dhahay lacagta ambeesaha lacagta kaashma xitaa lacagta kaashma kugu tuurnaa mase ambeesaha baa ku soo gelinaa bay ku dhaheen markaas buu yiri in ambeesahan igu soo geliya wiilka hal mar buu af Soomaali ku dhahay yaa Soomaali ma ahayd haa Soomaali baan ahayo caawda waxa aad ka sheekeynayeen waan maqlayay buu dhahay oo markii horena waan ogaay waan talagalay markii dambana waxa waaye waan maqlay caawda waxaad ka sheekeynayeen gabdhii way meeshii ku maran dilaacin xadin gaarigii bay iska tuureen markaas lacagtii xataa ay u tuureen xataa janji ay ka reebeen xataa way ka carareen oo ku dhahay xataa janji wejigii wiil ay ku dhahaan xataa janjigii noo soo celi ama lacagta sarifka noo soo celi weji ay ku dhahaan waa waaye naagihii albaabka le ka baxeen fakatax mid walba meesha u carar karto bay u carartay mid baa meesha u boodi kartay u booday mid waxaa gaariga waxaa la yiri ay ku dhacdo wadada maraayimkii laamigii bay iska tuureen wadada qarkeed bay bootaankii ay booday hal mar daqad ka furtay bay laamiga oo gaariga kow kala siiyay mid horta mid labadii kala de meeshii bay ka carareen ku tusaale qaateen meeshii bay ka carareen xadin meeshii de maxaa la sameynaa hada wax ilaahay u qornaay meed waxaa qorneed in taas ku dhacda baa qorneed waayo marka soo waqtiga oo soo dhamaadana meeshii waqtiga ku dhamaan waa lagu keenayaa gabdhaas waxaa sabab u noqday yacni wiilkiis oo hadlay haddii uu hadli lahayn kulay sababta dhamaad soo ma hadduu hadli lahayn dee shaqadii iska sii wadanayaan laakiin ilaahay kuwa kale ku cimri qaatay kuwan dee sidii wixii uga baxeen waa la yiri oo yacni falkii way tii ku tusaale qaatiin si u dhimatay oo lagu duugay tii labadii kalena bay falkii uga dhamaadeen uga baxeen buu wuxuu ku tusaale qaateen gabadha ay gaariga u kala gooyo oo saaxiibtooda ahayd marka ilaahu qaat xumaha nagu dina qaat xumo ilaahu nagu dina rabbi raxmaan oo jidka wanaagsan ee hadaysan ilaahay nuu hadeeyo ilaahu rabbi raxmaan intii waxaan ku jirto oo ma waxaan sameynayso ilaahay ku soo hanuuniyo anakana ilaahay jidka toosano saxan ilaahay nagu sii din intaan haysana ilaahay anigu sii hadeeyaan leeyahay insha Allah tacaala asxaabta soo dhawaada hadee waa kaasaa qasooyinku iska badan yihiin hal iyo laba ma dhihin kara laakiin insha Allah tacaala kiskis ayaan nasoo wadaagaya